madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa waxa uu furay kulan socon doona muddo 5 cisho ah oo uu furay barasaabada iyo maayirada kala duwan ee dalka. Kulankaasi ayaa waxa soo abaabushay hay'adda ka hortagga iyo maareynta masiibooyinka dabiiciga ee NERAD, waxaana kulankaasi loogu talagalay sidii loogaga wada hadli lahaa deegaanka iyo waliba masiibooyinka dabiiciga. Ugu horeyn halkaasi waxa ka hadlay isla markaasina faahfaahin ka bixiyay kulankaasi gudoomiyaha hay'adda NERAD, wasiir ku-xigeenka nabadgelyada iyo waliba madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici, waxaanay sheegeen dhammaantood ujeedada iyo waliba faa'iidada uu leeyahay kulankani. iyagoo ka hadlayana waxay yiraahdeen degmooyinka sharciga hore artikalka 6 in degmooyinka madaxdooda iyo barasaabada madaxdooda iyo annaka cidii naga joogto markaa shaqaalaha iyaga haya inay guddi sameeyaan ka hawlgasha abaaraha iyo dhibaatooyinka dabiiciga, isla markaana hadii goor wax nala soo socodsiiya, hadii goor shira oo noqdaan waxaan ingiriisku yiraahdo disaster risk committee oo madaxweyne ku-xigeenada aad u bariyaadaba committee u sareeyo wadanka ay waateen isaga noo aqoonskii madaxweyne ku-xigeenku isagoo shaqadiisa kala badan tahay. kolka aad iyo aad baan ku mahadnaqayaa barasaabadii oo wada joogaan waana soo sharifeen kulayadu maanu dadaal yarayna waanu telefooniyo waxba noo diro sidii aan ugu yeedhin noogu yimaadeen. iyo degmooyinkii ayaa waxaa filaya inta ka maqan inay yar tahay ay wada muuqdaan ragga badidooda. runtii siminaarkaasna loogu qabanaya hawlo inta badan mararka qaar nala kulma oo waxaan la yidhaahdo aafooyinka dabiiciga sidii daraasad looga samayn lahaa, loo fahamsiin lahaa dadka inoo jooga gobolada iyo degmooyinka si ay iyaguna ugu diyaar garoobaan wax kasta oo iman kara ama warbixin uga bixin kari lahaayeen ayaa maanta halkan ay ugu diyaarisay hay'adda NERAD oo socon doona 4 maalmood maalin shanaad la soo xidhayo. aad baan u faraxsanahay runtii maanta halkan isku keenay qorshe hawleed ama tababar ama aqoon isweydaarsi lagu tababarayo hay'adihii ka mas'uulka runtii gobolada iyo degmooyinka, gudoomiyaasha gobolada iyo gudoomiyaasha degmooyinka. runtii ka socotaan hay'adani waa hay'adda ka hortagga ma odhan karno hortagga ma odhan karno ilaahay baa wada cidaba kama hortagi karta diyaargarowga iyo maareynta weeyaan aafooyinka dabiiciga wixii nacamka aafooyinka dabiiciga mar walba dhacaya diyaargarowgooda iyo maareyntooda iyo weeyaan magacu iyo isla markaana research laga sameeyo waxyaabaha cimilada iska bedelaya. saa la socotaan isbedel cimilada jira, cimilada isbedelka waa taa la socotaan 7 cisho madaxa adduunyada isula jirto caasimada Faransiiska Paris ilaa hadda dadkii ay taabatay dhibaatada isbedelka cimilada keentay ee bini'aadamku gacmihiisa ku samaystay. kulankani uu furay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland ee ku saabsan dhinaca deegaanka iyo waliba masiibooyinka dabiiciga ayaa waxa uu ku soo hagaagayaa xilli muddooyinkii ugu dambeeyay guud ahaanba ay ka jiraan geyga Somaliland dhinaca xaalufinta deegaanka oo iyadu horseed u noqotay in ay ka abuurmaan masiibooyin dabiiciya iyo waliba abaaro kala duwan. waa Maxamed Cali Xaashi, TV-ga Space Channel, magaalada Hargeysa.